guddoomiyaha gobolka sool waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka Soomaaliland ay u aqoonsatay guddoomiyihii ugu waxqabadka badnaa dhammaan gobolada dalka oo baaldahaba taariikhdu ay ku xusi doonto. Cabdiqani Maxamuud Jiire waa dhalinyaradii laascaanood ku barbaartay noqotana aqoonyahanka haldoorka u noqday bulshada. Shakhsigan aan sheegayo waa guddoomiyihii tiraba 2 jeer guddoomiyaasha gobolada xilli isku bedel lagu sameeyay loo xushay waxqabadkiisa. Waxa uu door muhiim ah ka qaatay nabadayntii xilli ay jirtay colaado aad u baasan. maanta noqotay inuu qayb muhiim ah ka qaatay sidii loo walaalayn lahaa bulshadii walaalaha ahayd ee iyagu colaadaasi dhextiilay. ugu dambeyn waxaa la soo afjaray colaad digiisii ay ku marin habaabeen xasilinteeda. guddoomiyaha nabadaynta looga bartay waxa ay haatan xukuumaddu u xulatay inuu qayb weyn ka qaato sidii uu xasilin lahaa nabadaynta beelaha ku dagaalamay gobolada jaarka ah gobolka sool sida colaada ka soo cusboonaatay deegaanka Hurfadhi oo ka tirsan gobolka Buuhoodle. guddoomiyuhu waxa uu diray maalinimadii shalay gobolka Buuhoodle salaadiin garaado cuqaal waxgarad ee cid kasta u arkay inay qayb ka noqon karto nabadaynta beelaha hagar iyo hayaag. waxaana iminka meel fiican maraya wajigii koowaad ee nabadaynta beelaha halkaasi ku dagaalamay. garaad jaamac garaad cali oo ah garaadka guud ee gobolada SSC ayaa dhankiisa sheegay in nabadaynta ay qaateen labada beeloodba. guddoomiyaha ayaa safar ku tagi doona degmooyinka Ceegaag iyo Hurfadhi si uu halkaasi habeen dhaxad ugu ahaado inta laga soo afjarayo colaadda nabadaynteeda uu barbilowga ka yahay. saxaafadeed ka soo baxay guddoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa lagu yiri maamulka gobolka iyo shacabka gobolka Sool iyagoo isku duuban waxay ka xun yihiin colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Hurfadhi ee gobolka Buuhoodle. waxaan si xilkasnimo leh oo wada dhalasho ku jirto ugu boorinaynaa kana codsanaynaa walaalaha shaydaanku isku diray colaadda aynu hubno in cawaaqib xumada adduun iyo aakhiraba laga dhaxli karo. maamulka gobolka iyo dadka deegaanka saameynta ay colaaddu ku yeelan karto waxayna dib u soo cusboonaatay 2 toddobaad ka hor oo ay qaateen doorka kaga aadan waana tii keentay in wafti iyo maamul cuqaasha iyo haldoorka gobolkani iyo guutooyin ka mid ciidamada qaranka Soomaaliland aan ugu dirnay. hadda iyo mar kastaba waxaa naga go'an inaanan waxba ka hakran tallaabo kasta oo lagu soo afjarayo amaba laga geysan karayo colaadda deegaanka Hurfadhi ee gobolka Buuhoodle. waxaan si cod dheer u dirayaa labada dhinac hadday tahay wada dhalasho xidhiidhnimo xigto iyo deegaan iyo diin dhaqan wax kastaba umadu wadaagto ay ka dhaxayso ku gubaabinaya inay nabadda u hiiliyaan oo foolaadka ragga iyo dumarkaba leh sida dhalinyarada culimada madax dhaqameedka in ay u istaagaan deminta colaadda maadaama aad idinku fura u noqon kartaan deminteeda. waxaad haysataan garab idinkala shaqeeya xalinta colaadda. waxaan idinka codsanaynaa idinkuna kalsoonahay inaad garowshaheeda leedihiin qaybta ugu mudanna amaba ugu muhiimsan aad ka qaadan kartaan soo afjaridda colaadda deegaanadaasi ka taagan walaalihiina Haygaag iyo hagar. waxaad tihiin tol wada dhashay oo deegaanka ku wada degan inta adduunku jiro gaal iyo islaam. nabad waan gogosha nasteexada colaad wiil baa ku dhashay wiil kuma dhisho. war saxaafadeedkani waxaa ku saxiixnaa guddoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire.